waayahay sheekh umar aday maaragtay kugu noqonaysaa su-aalaha qaarkood oo la codsay daraaddeed iyana waan isu soo ururiyey waa dhowr su-aalood oo isku mid ah 3 su-aalood way isu dhow yihiin mid waxay leedahay ninkaygu waa nin wadaada oo haddana diinta u nasab sheegta haddana ima baro imana ogola meelaha diinta lagu barto inaan aado marka arrintaa maxaa igala gudboon maxaase isaga u dardaarmaysaan qodobka labaad waa gabar kaloo cabanaysa waxay leedahay nin baa qaba 2 jeer buu midba dalqadi furay tii saddexaad iguma sii dayn laakiin silic baan ku qabaa wuu aflagaadeeyaa muddo 2 sano ana masaariif ima siinin ninkaas maxaa u dardaarmaysaan qabiddu qabaase maartay muxuu sharcigu odhanaya su-aasha saddexaad iyana maxaan ku dhahdaa waa qof le waxaan ku riyooday labada maartay waxay u eegtay xagga ixsaanka waxaan ku riyooday labadii awowgay hooyaya aabbo weligeyna ma arag marka riyadaas khayr baan ugu riyooday laakiin maxaan u qaban karaa oo igu laazimaysaa su-aasha kale gabar baa leh oo ina soo weydiisay anoo 8 jir ah ayaa hooyaday waxay iga tegi jirtay carruurta marka carruurta canug baa ku jirtay iyo dhibtay marka dhibkaasaan uga baxo ma aqaansay ku baratay laakiin waan sumeeyey baa sun baan helay ilmihii sun baan siiyey waana dhimatay 8 jir baan ahaa markaan karaamka galay labadooda waalidna ma oga qofkaasina aan igu maqan yahay laakiin markaan arrintaas sameeyey waxaan ahaa 8 sano ayaan jiray barakallahu fiik بسم الله الرحمن الرحيم ولي تعليقي وادب دغنايا maxaa yeelay kuwana ba igu badan ba su'aasha hore dinkeedu waa wadaad diintana ma baro inay soo baratana uma ogolaado diinta gabadhu ay baran rabtay ku xidhantay haddii ay tahay diinta qaybteeda barashadeedu ay laazim ka tahay ee ruuxa cibaadaadkiisu uusan asaxaynin ilaa inuu barta mooye hadday qaybtaas tahay kaga amar qaadan mayso say u tukan lahayd say u dahaaro qaadan lahayd say u soomi lahayd cibaadaadka laazimka ah waxbarashada asaasiga u ah middaa iyada ah waa fardu cayn ninkuna ma hor istaagi karo ama waa inuu isagu baro ama waa inay soo barato hadduu isku dayo inuu hor istaagana xaq uma laha sheekh mustafa wuxuu leeyahay nadkii cajaladaha ka barato waa baba baxaysa masha Allah farsamo fiican waa la isku jawaabajin almuhim waxa way qaybtaasi waa qaybtaa isaga waxaan ugu nasiixayn lahaa xaskaaga ama ha noqoto qaybta waajibka barashada ama qaybta sunnada ah xaskaagu inay wax kororsato oo ay wax siyaasato waa iyada danteeda adiga dantaada caruurtaada danteeda sidaas daraadeed xanibaadda faraha badan ka daa haday jirto waa laga yaabo marka qaarkood Soomaalidu waxay yiraahdaan haddaad aragto walba nin dhig ka daadanayo ha u garaabin ilaa aad waxa ka dambeeyo fiirisi meeshuu ka yimid mid meeyda bal dhici karto inuu ka soo tagayba Soomaa marka xaasaskii ragga isqabiyo dumarku aad bay u kala sheegtaan waxa dhici karta tasoo sheeganaysa lafteeda inay baashu ku miragsanto oo iyadu kharibanta waa wax suroobi karo marka hadalka waxaan u dhigayaa aniga si caam ah laakiin haweeney gooniya iyo guri gooniya wax uma xukumayo laakiin haday sidaa noqoto sidaas ay noqon saamaan ka hadlayaa macna haweenta su'aasha xigta oo haweeney ay dalqadii saddexaad u laaban tahay labadii kalena tageen tanna ku dhiban maxaad kula talin lahayd tii hal mid haday ku laaban tahay halka mid ceshaan ku dhila halka mid ku fara adayg oo gurigaaga iska burburin oo ninkaaga u sabir oo guriyo badan baa saa ku dhisa haddaad isaga dib uga carartana mid 100 dhibood qaba inaad u gashaa dhici karto Soomaa Soomaalidu waxay yiraahdaan nin aad taqaanana waxay dhigi jireen
hal dhib baad uga cartabee midaada aqoonina 100 baad ugu gashaa marka guryahoo dhan baa saa iska oo sabirkaas iyo adkaysigaasaa lagu wada dhaqan yahay gabadha waxaan dhihi lahaa gurigaaga dhaqo ninkaaga dhibkiisana u adkayso gurigaa iska duminin muxuu ahaay wixii khayran allah ku waafaji su-aasha saddexaadi waxa weeye arrinta ku saabsan riyada awowyada ay ugu riyootay ayeeyooyinka riyo fiican allah u aqbalo riyooyinkana ma fasiro ma aqaan aniga si riyooyinka loo fasiro kuma fiicin xataa kuwaygaana fasiran aqoon ama maxaa iga aadan riyadaasi waxay kugu laaziminayso sharcan ma jiro oo riyadu asalkeedu hadday quman tahay oo qaybta malaa'igta ka timid ay tahay qaab shayaadiintay ka timaadaa riyada qaarna malaa'igtay ka timaadaa qaarna ruuxu markuu sii seexanayo waxa qalbigiisu ku sheekaysanayay cajaladu dib u akhridaa waa saddexdaa meel buu ka yimaadaa hadduu riwadii fiicnayd ee malaa'igta ay tahay markaasi waxa weeye khayr weeye laakiin laba gooraba ama riyood ama riyoonine waalidiinta iyo awowyada iyo ayeeyooyinka xaq bay kugu leeyihin u sadaqe ixsaan u same u ducee xuquuqdaas waa kugu leeyihin macana su-aasha u dambaysa afraad gabadha yartee 8 jirka ah ee walaasheed dishay horta qiso la yaab le maaha oo fiqigu waa ka hadlaa kutubta fiqigu ilmuhu isagoo yar oon qaangaadh ahayn hadduu wax dilo ee wayna dhacdaa nairobi maalinteedu waxaa ka dhacday wiil isagoo yar oo mada'daasu waa mise wuu ka yaraa ayay xabadi kaga qaraxday nin reer bay ahaayeen meel bay deganaayeen nin martiyaa u yimid isaguna waa ilmo yaroo ma 6 jirbaa ma 5 jirbaa meelahaas waa ninku qori buu wataa marka reerkii hadduu u yimid oo la fadhiisiiyey oo shaah iyo wuxuun loo raadinayay iyo biyo wiilkii isagoo yar ayuu intuu hoostiisa soo fadhiistay qorigana ammaankaa u furaa unbuu wuxuu taabtay baashii ahayd maxay ahayd keebkii buu taabtay ciyaar ahaan buu u taabtay ninkii xabaddii baa ku qaraxday lama dhul dhicinba wiilkii hadda waa 35 jir waay muddadaa kadib bacda 30 sana ayuu wuxuu sheegay dhacdadii nooca ahay haddaa dhiiggii la bixinayo waa xusuus badan yahay marka gabadhan waa ilmo yar xukunku wuxuu noqonayaa sida soo socota carruurta yararkaa ah ee aan qaan gaadhin jinaayaadka ay geystaan horta qisaas ma leh ee waa qatli khata'a xataa hadday u qastaan ayaga qisaas ma leh camdina ma lehe waa gaf waa wax ismoodsiis iyo qalad u dhacay hadduu u dhacayna waxaa ka laazimaysa mag baa ka laazimaysa yaa magta lagu laaziminayaa waxaa lagu laaziminayaa gabadha yarta ah qaraabadeeda waa caaqiladii aan ka soo hadlayay masaladii qabyaaladda markaan ka hadlaynay caaqilada ilmaadeeradeed iyo adeeradeed iyo dadkana magtu ku waajibaysaa magta yaa qaadanaya waxaa magta qaadanaya dadka dhaxalka leh ee ilmaha dhintay dhaxalkiisa leh ayaa magta la siinaya yaa bixinaya tii wax dishay qaraabadeedaa bixinaysa ayadu wax ma ku leedahay waa masale khilaafiya iyadii gacanta lahayd ee khata ahayd ma qadaysaa mise waxbay ku leedahay daahirka xadiidka marka la fiiriyo alqaatilu laa yarith daahirkiisa marka la fiiriyo ayadu dhaxalka ma qayb gelayso masaladu marka sidaas weeye wabillahi tawfiiq